Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dhammaan asxaabta ku xiran Abeka Technology kusoo dhawaada cashirkeena 12aad ama Part 2 maanta cashirkeena waxa uu hadli doonaa qaab cusub adigoo adeegsanayo applicationka PicsArtist iyo telefoonka Android-ka. waxaad horey u soo aragteen qaab splash effect aan u sameynay. qaabkan wuu ku fudud yahay qaabkii hore inshallah binilaahi kariim. sawiradaas waxaad ku soo dhigi doonaa linkiga videoga hoostiisa ayaad ka degsan doontaa inshallah binilaahi kariim. intaan cashirkaaga hor dhicin please la daawo. ugu horeynta waxaad soo furi doontaa applicationka PicsArt. markaad tabtana usoo furto kadib waxaad imaan doontaa calaamada balaasta. kadib waxaa imaan doontaa meeshan ay ku qoran tahay Picscanvas-kan markaa imaadid waxaad ku xulan doontaa 1600 times 1200 kadibna tag ayaad ka dhigi doontaa. qaabka markaa u samaystid kadib waxaad sameyn doontaa sawirka ayaad soo dhaweey doontaa inshallah. kadib waxaad sameyn doontaa calaamada filaarta tag edit kadib inta ayaad imaan doontaa tools markaa imaadid resize meeshan 1200 ay tahay ka bedel 1900 ka dhig kadibna size sidiis ka dhigo. waxaad sameyn doontaa add photo-dan kusoo darsan doono waa splashkaas kan markaa kusoo dartid waxaad sameyn doontaa splashka soo jeedin doontaa qaab dhexda ku siman ka dhigi doontaa markaas weynay doontaa inshallah. qaabka markaa ka dhigtid tig ayaa saari doontaa. tigta markaas hadid kadib waxaa imaan doontaa meeshan ay ku qoran tahay draw markaad ku dhufatid kadib waxaad sameyn doontaa sawirka qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa adigoo ujeedid. kadib waxaa leedahay add photos. sawirkan waxaad kusoo darin doontaa inshallah sawirka hadda sawiraanteena Maxamed Saalax sawirkan kubadda waxaana ku shadow u sameynay hore u aragtay. sawirkan kubadda rabnaa inaan kusoo darno waa la ekeysi doontaa sawirka ayaa la ekeysi doontaa. sawirka markaas sidaan aadid meel banaan ama meel faaruq ah ku dhufo kadib meeshan imaaw asla sawirka adoo taagan waxaad dooran doontaa lighting iftiinka ayaa ku furi doontaa. kadib oo ujeedaa sawirka qaabkan ayuu noqday. waxaad sameyn doontaa kadib adoo meeshan imaan doontaa kadib transform ayaad dhihi doontaa. transform waa sawirka qaabka u dhaqaajin lahayd. intaan wijiila ka rabnaa inshallah sawirka intaas oo kaliya ka rabnaa waa kubadda oo idin soo qaadan marno. qaabka markuu ku noqdo tig ayaa saari doontaa sida ujeedid sawirkaaga qaabkan ayuu noqon doonaa qaabkan ayuu soo muuqan doonaa. kadib waxaa leedahay tigta ayaa saari doontaa mar labaad. waxaa imaan doontaa meeshan ay ku qoran tahay effects markaa imaado effects ayaa imaan doontaa. waxaad raadin doontaa lomo markaad raadisid kadib amountiskaas 0 ayaa ka dhigi doontaa. midkan hoose fade ay ku qoran tahay 54% ka dhigo. sawirka ujeedid qaabkaas ayuu noqday. tigta saaro kadibna tigta markaas u saaratid kadib waxaad sameyn doontaa waad save garaysan doontaa inshallah binilaahi kariim. maanta cashirkeena halkaas ayuu ka egyahay. haddii aad tahay maalinta kugu horeysay aad soo booqatay Abeka Technology please subscribe dhaho hana ilaawin inaad gambaleelka furato waayo video walba aan soo gelino
si aad ula socotid aadna noqotid daawadaha ugu horeeya videogaas daawada. Insha Allah binillahi alkariim, tan iyo intaan ku kulmi doono cashirka xiga mise videoga xiga, waxaan idinkaga tagi doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. See you next time.